isweydiinaya talo maxay abaartu maxay ku qeexi karnaa dadsan adab lagaxa abaaruhuna waxay kamid yihiin masiibooyinka dabiiciga national disasters kuwaasoo inka saameeya dadyoga adduunka sida abaaruhu ay caan ugu yihiin innaga dhulka Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida saas oo kale waxa daadadka waxay caan ku yihiin Philippines iyo dhulkaas ka dhaca Mareykanka soo kale iyagana waxa caan ku ah fire force digacda gubashada kaymaha iyo Turkiga sidoo kale Hindiya iyagana waxa ka dhaca duufaanada sidoo kale Japan iyo dhulka waxa ka dhaca dhulgariirada earthquake Ibrahimo maadaama roob yaraan ay deed ku qeexday muxuu hayeen abaartu ay tahay oo maxaa sababay in la isweydiin karo dadka xoolo dhaqatada ah markay abaaruhu dhacaan ama lagu jiro waqtiga roobaadka maxaa la gudboon in looga baahan yahay inay sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan tallaabooyin noocyada looga baahan yahay sameeyaan hortay warreyn marka markay timaado waxa jira hay'adaha qaramada loo qaabilsan warreyn marka ugu horeeya saddex face bay martaa digniinaha soo saara hay'adda salaada hay'adda FAO hay'adda culimada adduunka iyadana FAO hay'adda caafimaadka adduunka waxa soo dhan waxay soo saaraan digniin marka ugu horeeya waxa weeye inay dadku qaataan oo dadka wacyiga dadka la ballaariyo hay'adda dawladda naarad bay u qaabilsan Soomaaliland soo sheegay 23 marka in la gaarsiiyo bulshada marka ugu horeysa digniin oo la yiraahdo abaar soo socotay ka tababaraysa marka labaad waxa weeyaan abaarta inay bilaabato oo qaybo ka mid ah sanadka waddanka imika dowladda bariga laga soo sheegay inay imika bilaabato oo inta istaan kale iyadana dowladda deegaanka ka bilaabatay sidoo kale Soomaaliya iyadana qaybo ka mid ah abaaraha ka jira baan inay bilaabato saddexaad waxa weeyaan inay last stage ka gaadho xaaladda ugu dambayso ay dhimasho gaadho roobka markuu iman waayo dadkii abaarta ku dhacdo xoolihii qaybeen ay dhintaan marka dambe ay u gudubto dadka dhimashada inay dadka ku bilaabo markaas saddexdaas stage bay markaa waxa ugu weyn waxa weeye dadka in wacyigelin la siiyo talabaad waxa weeye dawladdu inay dadka la soo raro oo la dejiyo meelaha magaalooyinka oo biyo ay ka heli karaan ugu dambeyn muxuu noqon karaa halka u dambeeya ay xeegana ku noqon karto ilkana ku nabad kala